Allah dipindah biayo dobo. xafladani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa ujeedkeedu ahayd qalin bedelashada dafcaddii lixaad arday dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka ee dugsiga arqam binu arqam ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada muqdisho. munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka dugsiga, macallimiin, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xafladda. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay macallimiinta iyo waalidiinta ardayda dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka, kuwa oo hambaliyada ardayda kadib waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqay in ay waajib tahay in carruurta la baro xifdinta qur'aanka kariimka. macalinka iyo macallimiinta garab taagan oo ardadan waqti badan soo geliyay heerkaas soo gaarsiiyay. midda xigta waxaa iskale waalidka, marti sharafka ayagana waan u mahadcelinayaa ka soo qaybgalkoodii waqtiga ay horeen. waxaan ku bilaabayaa midda dhallinyarada oo maanta qur-aanka ayaga munaasabadan loogu talagalay in loo qabto. waxaan idin leeyahay qur-aanka sidaan hadda loo karaameeyey iyo sida loo karaameyn doono mustaqbalka iyo sida loo karaameyn jiray mar waliba jiil ayaa hogaamiyo. inaad ka mid noqotaan jiilka mustaqbalka qur'aanka hogaamin doono. waxaa mahad iskale ilaahay xafladan quruxda badan leh iyo hooyooyinka iyo aabooyinka ka soo qayb galay. waxaan u mahad celiyeynaa tan labaad macallin maxamed cabbaas, maasha allah, alxamdulilah, oo ubadkayga maanta wiilkayga xuseen mahdi oo qalan jibinooya, alxamdulilah. inta dhimanna allah ha dhammaystiro. waxa ay ahayd madal aad u qurux badan taa oo ay ku qalin bedelanayeen carruur aad u da'yar, kuwa oo dhammeeyey barashada wax la barta waxa ugu qiimaha badan ee qur'aanka kariimka, kuwa oo halkan ku soo bandhigay su'aalo iyo jawaabo ka turjumaya waxyaabaha ay barteen. carruurtan ayaa wejiyada laga dheehan karay farxad iyo dadaalka iyo juhdiga ay ku soo bixiyeen macallimiinta iyo waalidiinta iskuulka arqam binu arqam oo maanta halkan xaflad ugu qabtay. qaar ka mid ah ardayda ayaan la hadli doonaa, kuwa oo cabiraya dareenkooda. anigoo magacayga Zakariya Mustafa Maxamed oo heerkan soo gaarsiiyay macallinkay Maxamed Cabbaas Maxamed. waxaan u mahad celinayaa alla ka suko macallin Maxamed Axmed Maxamed. anigoo magacayga Aadna Cabdullaahi Maxamed, halkaasna waxaan ugu mahad celinayaa macallimiinteedii, waalidkayga iyo kabiiradeedii igu dhiirgeliyay inaan wax barto. waa mahadsantiin macallin. ugu dambeyntii maamulaha iskuulka arqam binu arqam ahna macallinka juhdiga badan ku bixiyey ardaydani maanta ka qalin bedelatay iskuulka, macallin maxamed cabbaas maxamed, ayaa ka warbixiyey muddada ardaydan ay wax baranayeen, sidoo kale dadaalka uu ku bixiyey. waxaan rabaa waalidiinta ama mataqaanaa rag iyo dumar iyo mashaa'ikhda macallimiinta kuwa aan ka tagnay inay maanta doorkooda ay qaataan jeclaay waqtiga oo nuu saamixi waay. waxaan leenahay naceeb aan idiin qabna nigama tagin. waan jeclaan lahayn inaad meeshaan doorkiina aad ka qaadataan. dadkaad jeclaa inay meeshaan soo istaagaan, dadkana u mahad celinaan, maanta doorkoodana ee meeshaan ay ka qaataan. marka waxaan leenahay manigaga tagin hilmaam, laakiin waqtiga inuu saamixi waaye. waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahad celiyo nidaamka xafladda oo ku socday, ardayda si loo soo diyaariyey. waxaan rabaa si gaar inaan ugu mahad celiyo almucallim al-ustaadiyad luul cabbaas maxamed. qaadir fantastic warbaahinta qaranka muqdisho.